ceelbiyood laga qoday deegaanka Jidbaale ee gobolka Sool. Ceelbiyoodkan ayaa loo waqfay Sheekh Boqolsoon. Mashruuca qodista ceelkan ayaa waxa maalgelisay hay'adda Islaamiga ah ee hay'adda Islamic Relief Foundation. Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cilmi oo ah mas'uulka loo soo wakiishay qodista ceelkan ayaa sheegay in ceelkan loo qoday masaajidka Jidbaale oo aan markii hore lahayn ceel kana faa'iideysan doonaan dadka kale ee deegaanka ku nool iyo sidoo kale dunyada deegaanadaasi ku dhaqan. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa si weyn ugu mahad celiyay qodista ceelkan hay'adda Islamic Relief iyo sidoo kale dadkii ka soo shaqeeyay, waxayna sheegeen in ceelkani uu yahay ceel aad u biyo wanaagsan marka loo eego ceelkii hore ee Jidbaale, una ka biyo jilicsan yahay kana wanaagsan yahay dhanka cabista. Waana kan ugu horeyn Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cilmi oo ka warbixinaya ahmiyadda ceelkani leeyahay. Walaalo Soomaaliyeed ay waxa weeye ku waqfeen ceelkaas waxa weeye loo waqfay masaajidkan Jidbaale. runtii Ilaahay baa mahad iskale. ceelka waxa khaas ahaan loogu sii waqfay Sheekh Boqolsoon ayaa loo waqfay. waxaana waxa weeye hirgeliyay Islamic Relief Foundation, hay'adda khayriga waxa weeye maxalliga ayaa waxa weeye ceelka waxa weeye hirgelisay. iyo dadka deegaanka ayaa waxa weeye hawsha waxa weeye ka wada qayb qaatay. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ruuxa waxa weeye adduunyada markuu ka intiqaalo saddexdii arrimood ee ruuxu waxa weeye uu ka dheefeli lahaa aakhira waxa weeye ka dheefeli lahaa adduunyadana camalkiisu socon lahaa mid kamid weeye waa sadaqatul jaariya, waa waqaf wax ka khayriya ka ajar badan waxa weeye ma jirto. Ilaahay waxaan uga baryaynaa walaalihii Soomaaliyeed ee hawsha ka soo qayb qaatay waxa weeye maaliyadooda ku bixiyay in Ilaahay ajar iyo xasanaad waxa weeye Allah uu ka siiyo. magacii waxa weeye ay dalbadeen in waxa weeye loogu qorana waxa weeye oo Sheekh Boqolsoon isna Ilaahay ajar iyo xasanaad badan waxa weeye uu ka siiyo Allah waxa weeye uu dheeftiisa uu gaarsiiyo. intaas ayaan waxa weeye kan hay'adda noogu yimaadeen iyo odayaasha iyo culimadu waa deegaanka Jidbaale oo deegaan ballaanama ceel bay nooga qodeen waqafa loo qoday Sheekh Boqolsoon. Ilaahay isagana ha fadligiisa iyo ajarkiisa u socodsiiyo kuwa noo keenayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. ceelkaas oo masaajidka loo qoday biyana laga gaadhay lana afjaray hawshiisina hadda maanta la soo afxiray sida weeye macnihiisu dadka noo keenay khayr baan u rajaynaynaa. wadaadkii loo qodayay macnaha ajarkiisa iyo afriisa loogu talagalay Ilaahay dee ha ka siiyo xasanaad iyo ajar. kuwa noo keenayna waa mahadsan yihiin. joognaa waa Jidbaale, ceelka Jidbaale iyo deegaanka Jidbaale. waa dhul ballaaran oo bana oo aan biyo lahayn. ceelka Jidbaale oo caana Soomaaliya oo taqaano biyo badan oo xooluhu ka cabaan male afka baa laga cabaa. aad u jeedaan ballaaran diiranna waa ku afku ku hayaa. aad baa loogu baahnaa biyo kan iyo kuwa kale laga qodo. dad badan baa dega xilliyada jilaalka aad loo yimaadaa oo dhulku kale uu soo dhulka biyaha leh xaalufaan. marka cidii loo qoday sheekha loo waqfay iyo cidii uu qaftay Ilaahay ka ajar iyo abaal laga siiyo. xasanaadkiisuna mid socda Allah ka dhigo. saasan rujeynaa cidii kuwa kale ka soo shaqeeyay cid ka soo hawsha ka qayb qaadatayba. culimada wadata iyo inta noo yimaada Ilaahay maxaa ka siiyo. ceelka uu qafanta loo baxay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Baasha Yuusuf Xasan. insha Allah waxaan rajeynaynaa Ilaahay ka taasoo mariyo.